السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود هذا مركله إيوه FPL Somali وأنا جو هدار عبد العالي وإن سعودين إياه حبين كلا وأنا واحد لينه فانتسي بريمير ليج لو ذكر الله تليكو لو ذكر الله تنلو صاحبي الواحد حسوسين إياه إن الشانل كسود بيرتان صاحبي دينا أضو بيرتان سيدو كلا إن هذا فيسبوك إنستغرام كو تويتر كنا أنا وصل بيرتان هالكاس وأن وربحنا جوكتاه صودي جنو سيدو ورك اللي حرير فانتسي بريمير ليج أولاً sida ciyaaryahanada qiimahoodu kor u kacayo ama kuwa hoos u dhacayo iyo wararka sida qiimaynta ciyaartoyda iyo dhammaan wararka la xiriira ciyaaraha markaas socda saaxiibayaal aad ay mahadsantiin inta nagu xiran waxaan idin leenahay like-ta ugu dadaala barnaamijkaasi oo dad badan u gaaro aad ay mahadsantiin barnaamijkan maanta waxaan uga hadlaynaa waxaynu soo gabagabeeyay ciyaareedkii saddexaad oo xaqiiqooyin muhiim ah laga diiwaangeliyay ciyaaryahano maamulayaasha aad wax badan uga tashanayeen aysan wax badan keenin kuwa la filayay in ay wax badan keenayaan si fiican u ciyaaray kuwa qaar oo isla filana dhibco u keenay way jiraan sida ciyaaryahanka dhibcaha ugu badan hogaaminaya ciyaareedkan ee lagu magacaabo Ferran Torres oo dhibco gaaraya Ferran Torres waxa uu qayb muhiim ah ka qaatay ciyaartii kooxda Manchester City ee 5-0 kaga badisay kooxda Arsenal asagoo Ferran Torres keenay dhibco gaaraya 18 dhibcood Ferran Torres waxa uu dhaliyay 2 gool sidoo kale hal caawin ayuu sameeyay sidaasna waxa uu ku noqday ciyaaryahanka ugu dhibcaha badan ciyaareedkii saddexaad ee naga dhamaaday si guud haddii aan fiirno ciyaareedkan dhibcihii ugu badnaa waxay ahaayeen oo maamule uu keeno waxay ahaayeen 119 celcelis ahaan dhibcaha la keenana waxay ahaayeen 54 ciyaaryahankii doorashada ugu badnaa la doortayna waxa uu ahaa Bruno Fernandes ciyaaryahanka ugu badnaa ee kabtanka la saartay waxa uu ahaa Bruno Fernandes ciyaaryahankii labaad ee kabtanka xigeenka la saartayna isla Bruno Fernandes ayuu ahaa ciyaareedkan Bruno Fernandes ayaa ugu badnaa oo marka la fiiriyo laakiin dhibcaha uu keenay ee ahaa kuwo aan aad iyo aad u farxad gelin oo maamulayaasha aysan ku faa'iidin oo waxa uu keenay 2 dhibcood oo kaliya oo cidii kabtan saaratay waxay ka heshay oo kaliya 4 dhibcood ciyaareedka la soo dhaafay waxaa la sameeyay ilaa 15,553,648 la wareegis ayaa la sameeyay sidoo kale waxaa la ciyaaray wildcard-ka oo ah jibaarada ugu badnaa ee la ciyaaray waxaana maamulayaal gaaraya 372,083 ay saarteen wildcard-ka ay ciyaareen marka sidoo kale jibaarka bench boost-ga ayaa la ciyaaray oo maamulayaal gaaraya 94,000 iyo 49 maamule ay ciyaareen sidoo kale jibaarka free hit-ka ayaa isna la ciyaaray ciyaareedka la soo dhaafay oo tiro gaaraysa 117,628 maamule ay ciyaareen sidoo kale jibaarka triple captain-ka oo ah in dhibcaha captain-kaaga lagu loo 3 jibaaro ayaa maamulayaal gaaraya 138,714 qof ay ciyaareen marka ciyaareedkani waxa uu ahaa mid ay maamulayaasha aad u dagaal galeen oo ay rajeynayeen in dhibco badan ka keenaan laakiin celcelisaan marka fiiriso dhibcaha la keenay 54 waxay u muuqataa in maamulayaasha ay aad iyo aad ugu dadaalaan maamulaha ugu dhibcaha badnaa wuxuu ahaa 119 marka ciyaareed wuxuu ahaa aad iyo aad marka loo fiiriyo si guud ah mid ay maamulayaasha si kadis ah ku gudbay marka si guud haddii aan fiirno ciyaaryahanada ugu dhibcaha badnaa dhinac kasta goolhayaha ugu dhibcaha badnaa wuxuu ahaa goolayaha kooxda Manchester United David De Gea oo dhibco gaaraya 7 dhibcood keenay goolayahan ayaa shabaqiisa ilaashaday oo ku ciyaartii Manchester United ay ka hor imaatay Wolves ninka lagu magacaabo Rafael Varane oo kulankiisa ugu horreeyay u saftay kooxda Manchester United ayaa daafacyada hogaaminaya oo waxa uu keenay 12 dhibcood ciyaaryahankan ayaa sameeyay caawin sidoo kalena waxa uu sameeyay shabaqiisa ay ilaashaday oo dhibco gaaraya 12 ayuu sidaas ku helay Coleman oo ciyaara kooxda Everton ayaa kamid ah ciyaaryahanadii ugu dhibcaha badnaa dhanka daafaca waxa uu keenay 10 dhibcood Coleman waxa uu Everton ka caawiyay in shabaqooda ay ilaashtaan sidoo kalena caawin ayuu sameeyay dhibco gaaraya 10 uu ka helay Reguilon oo ciyaara kooxda Tottenham ayaa isna ka qayb qaatay in kooxda Tottenham ay shabaqooda ilaashtaan ciyaartii ay ka hor imaadeen kooxda Watford oo hal iyo ku soo dhamaatay dhibco gaaraya 9 dhibcood ayuu la keenay ciyaaryahanka ugu dhibcaha badan waa Ferran Torres waa ka soo hadlay ciyaartii kooxda Manchester City ay 5-0 uga badisay ayuu 2 goolna ka dhaliyay hal caawinna ka sameeyay oo dhibcihii dheeraadka ahaa ee labada ahana uu helay sidaasna 18 dhibcood ku keenay
ciyaaryahanka da'da yar ee lagu magacaabo Conor Gallagher oo kooxda Crystal Palace u ciyaara ayaa kulankan isbuuciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu dhaliyay 2 gool dhibcihii dheeraadka ay saddexda ahna uu qaatay ciyaar kooxda Crystal Palace ay marti u ahayd West Ham oo 2-2 ku soo dhamaatay. ciyaaryahankan ayaa si la yaab leh uga soo qabsanaya Premier League isagoo ciyaartii ciyaareedkii horena dhibco fiican keenay. ciyaaryahanka lagu magacaabo Buendia oo ciyaara kooxda Aston Villa ayaa isna 10 dhibcood keenay. ciyaaryahankan waxa uu dhaliyay 1 gool sidoo kale dhibcihii dheeraadka ahaa ee saddexda ahaa ayuu ka qaatay ciyaartaasi ay kooxda Aston Villa hal iyo hal kala galeen kooxda Brentford. ciyaaryahanka lagu magacaabo Son ayaa isna gool dhaliyay dhibco gaaraya 10 dhibcood ayuuna keenay. Son wuxuu dhaliyay goolkii kaliya ee kooxda Watford ay gool darrada ay ugu saariyeen kooxda Tottenham. dhanka weeraryahanada markaan fiirino weeraryahanka ugu dhibcaha badnaa isbuuciyaareedkan waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Gabriel Jesus oo gool ka dhaliyay kooxda Arsenal oo Manchester City si raaxo leh uga badisay isagoo keenay 12 dhibcood markii isku dardaro celcelis ahaan. ciyaaryahanka lagu magacaabo Jimmy Vardy ayaa isna dhaliyay gool sidoo kalena caawiyay isagoo keenay dhibco gaaraya 12 dhibcood. ciyaaryahanka Mikel Antonio oo aan aad uga hadalnay isbuuciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa keenay 12 dhibcood. waxa uu ahaa Mikel Antonio marka loo fiiriyo ciyaaryahankii labaad ee kabtanka aadka loo saartay isbuuciyaareedkii lasoo dhaafay. marka taasi waxay muujinaysaa in maamulayaashii aaminay uu aad iyo aad uga farxiyay maadaama uu soo xareeyay 22 dhibcood. dhibcaha guud ahaan marka la isku dardaro isbuuciyaareedkii lasoo dhaafay waxay ahaayeen 126 dhibcood. taasi waxay noo cadeynaysaa marka in isbuuciyaareedkii lasoo dhaafay uu ahaa isbuuciyaareed aad iyo aad ciyaaryahanno aan laga filaynin ay sidoo kale ay dhibco waali ay keeneen. ciyaaryahanka Mohamed Salah ayaa ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu badnaa ee kabtanka la saartay kaalinta saddexaad ayuu ku jiray waxa uu keenay 10 dhibcood. ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo Bruno Fernandes oo ahaa kabtanka ugu badnaa sidoo kale doorashada ugu badnaa oo ka mid ahaa ciyaaryahanka ugu badnaa ee la doortay haddii loo fiiriyo dhinaca kabtan ku-xigeenkana ahaa midka ugu badnaa kabtankana ugu badnaa marka waxa uu keenay oo kaliya 2 dhibcood. waa isbuuc ciyaareedkii sagaalaad 15 kulan ee ugu dambeeyay uu sidaas sameeyo. marka taasi waxay rajaxmo gelinaysaa maamulayaasha inta badan aaminay maadaama Bruno Fernandes uu yahay 12 dhibcood 12 milyan uu yahay qiimihiisa in maamulayaasha ay laga yaabo inay ka tashadaan oo ay bal fiiriyaan ciyaaryahan kale oo ka qiimo yar oo dhibco u keeni kara. bal haddii aan fiirino liigan FPL Soomaali oo maamulayaal badan ay ku xifaaltamayaan maadaama hadda la galay nasiino oo ciyaarihii tartamada caalamiga ah la ciyaari doono oo kulamo saaxiibtinimo iyo isreebiyada koobka adduunka iyo kulamada kale la ciyaari doono. waxaan fiirinaynaa maamulaha ugu dhibcaha badan ee hogaaminaya ninka lagu magacaabo Cabdishakuur Yare ayaa kaalinta koowaad hadda liiga hogaaminaya. Cabdishakuur Yare waxa uu keenay dhibco gaaraya 68 dhibcood isbuuciyaareedkii lasoo dhaafay. marka taasi waxay cadeynaysaa in tartanka uu furan yahay kaalinta koowaad way furan tahay oo weli waxa ku soo xiga ninka lagu magacaabo Kamil oo asna 265 dhibcood marka la isku dardaro overall-ka haysta. ilaa iyo 250 waxaa ka badan ilaa 7 maamule ayaa ka badan. marka tartanku waa u furan yahay saaxiibada kusoo biira FPL Soomaali liiga kusoo biira sidoo kale ugu yeera saaxiibada halkan ku jirta liigana ka mid ah channelkana aan kusoo biiran haddii ay jiraan ayagana inay channelka kusoo biiraan. saaxiibkan Cabdishakuur Yare haddii aan fiirino shaxdiisii 68 ku keenay waxa uu watay dhanka daafac markaan ka bilowno Alexander Arnold, Luke Shaw, Eric Dyer saddexdaas ayuu watay. Alexander Arnold asaga waxa uu qaatay dhibcii dheeraadka labada ahaa taas ayuu 4 ku keenay. Luke Shaw 6 dhibcood ayuu u keenay. Eric Dyer oo kooxda Tottenham daafaceeda ahaa maadaama shabakooda ay ilaashadeen waxa uu ka helay 7 dhibcood. Ben Rama asna wuxuu ahaa maamulayaasha in badan oo ka mid ah aad u soo iibsadeen ciyaareedkii lasoo dhaafay laakiin 2 dhibcood oo kale ayuu keenay. waxaa kaloo watay Fernandes oo asna 2 dhibcood keenay. Mohamed Salah iyo Greenwood ayaa sacaawiyay oo min 10 iyo 8 u kala keenay. marka
Mohamed Salah waxa uu gool ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Chelsea oo banooni rogoore ahayd uu ka dhaliyay. Richarlison ayaa u hogaaminaya dhanka weerarka iyo Ings oo isna afar keenay iyo kabtankiisa oo ahaa Mikel Antonio. Mikel Antonio waxa uu keenay 22 dhibcood. Marka Cabdishakuur waxaan leenahay hambalyo sidoo kalena waxaan ku rajaynaynaa inaad sii haysatid maamulayaasha kalena waxa ugu yeerayaa inay Cabdishakuur oo kaliya loo ogolaanin inuu meesha sii haysto. Dhibcihiisana waa 267. saaxiibayaal waxaa lagu sheegayaa in la shaaciyay qiimaha Cristiano Ronaldo ciyaaryahanka hadda dhawaan soo saxiixay kooxda Manchester United. Cristiano Ronaldo qiimaha lagu bilaabay hadda waxaa la inuu qaali yahay oo qiimihiisu waa 12.5. ciyaaryahanka kale ee 12.5 ah waa Mohamed Salah. Marka sidii aan hore u aragnay ciyaareedkan ama xil ciyaareedkan FPL-ka ciyaaryahanadu inta badan qiimo aad u sareeya ay ku bilowdeen, laakiin hadda maadaama isbedelo ay dhacayeen ciyaaryahanada qaab ciyaareedkooda isbedelayay qiimaha hoos ayuu dhacay. Marka weliba furan tahay haddii aad wildcard-ka iyo jibaarada kala duwan ay haysatay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo waa soo iibsan kartaa. waxaa la sheegayaa warar waxaa soo baxay in Cavani uu kooxda ka tagi doono kooxda Manchester United, taasoo laga yaabo inay fursad badan ay siiso Cristiano Ronaldo oo sida uu shaaciyay Ole Gunnar Solskjaer in Cristiano Ronaldo uusan kaydka fariisan doonin oo ciyaaryahanada xifaaltankooda uu sare u qaadi doono, gaar ahaan ninka lagu magacaabo Martial oo aad moodo in qaab ciyaareedkiisa uu maqan yahay. Marka waxaa muuqata marka in fursad kale ay tahay oo maamulayaasha ay ka faa'iidi karaan adeega Cristiano Ronaldo. saaxiibayaal aad ay u mahadsantihiin. waxaan xusuusinayaa inaad ku biirtaan channelkeena FPL Somali, sidoo kale liiga aad ku soo biirtaan, groupka Facebookana aad ku soo biirtaan, Facebooka, Instagramka iyo Twitterka oo aan wararka sida joogtada aan ku soo daawacno aad nagu soo biirtaan. aad ay u mahadsantihiin. muuqaalka share gareeya, like na saar. aad ay u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.